xarunta jaamaca waxaa la aasaasay sanadkii 2013 waxaana loo aasaasay maktabadahan iyo meel community center ahaan. jaamaca waxa ugu muhiimsan oo bulshada u qabanay waxaa ka mid ah inuu horta skills siiyo xirfado kala duwan inay bulshada inay yeelato sida ay noqoto falkintii alaabahay dhar caadi dumarku soo saarayaan iyo gabdhaha iyo wiilashaba waxay soo saarayaan maxaa dhahaa barnaamijyada hadana kuma xirna wixii dhaqanka bas ahaayo waxaan sameynaa xataa wax hadda waqtigan la joogo ee u baahan yihiin xirfado ay u baahan yihiin bulshadu oo ay ka mid tahay hadday noqoto film making hadday noqoto videography hadday noqoto photography hadday noqoto qoraalkii sida wax loo qori lahaa hadday noqoto maxaa la dhahaa designing iyo dhar tolo tailoring waxa kale aan sameynaa fooramo kala duwan sida connecting youth to the elders oo ah waxa la isku xirayaa dadkii waaweynaa iyo dhalinyaradii waayo waxaan dareemaynaa inuu generational gap weyn ka jiro bulshada oo dadkii dhalinyaradii iyo dadkii waaweynaa isfahankoodii yaraaday jaamaca waxa kale ay sameysaa barnaamijka sanadlaha ah oo Somali Heritage Week mise asbuuca dhaqanka Soomaaliyeed oo aan ku soo bandhigno National Theatre-ka wadankan Kenya marka waxaan ku soo bandhignaa waxaan ku bilownay horta markii hore waxa jiray waagi waxa ahayd Usalama Watch u socday oo Soomaalida laga dhigay in argagixis bas yihiin wax kale aanan ahayn marka waxaan u bilownay as a counter narrative in waxaan ka aaminsan yahay aan bedelno marka horta jaamaca waxay ciyaartaa roolkaas oo ah sabaan magaca narrative-ka Soomaalida laga aaminsan yahay oo bedeli karnaa sabaan dadka u tusi karnaa dadka nahay dhaqankan leenahay quruxda dhaqankan leeyahay maxaa la dhahaa san ugu nahay qani xagga maxaa la dhahaa suugaanta iyo waxyaabaha kala duwan anaga Soomaalida qani ku nahay waxyaabo kala duwan horta xarunta hadda ay haysaa jiro sidii buwaagtii dhalinyarada meesha imaatay wax ku akhrisataa hadday taxaamul leeyihiin hadday rabaan inay waxyaabo kala duwan ka wada hadlaan oo discussions ku haystaan hadday noqoto inay dhalinyarada ayaga laftirkooda trainings isku sameeyaan wax isku tababarayaan oo wax cusub isla baranayaan xagga creativity-gana dadka ka dhisaynaa oo ah wax dadka waxaan ku dhiirigelinay in ayaga wax la soo bixi karaan waxaa jira boorsooyin ee hadda dhaqanka laga sameeyay waxaa jira alaabo kala duwan oo ay ku soo saarayaan creativity-ga dhalinyarada hadday noqoto burdahan ku dhammaynu baxo